weli waxaynu ku jirnaa wararka magaalada Muqdisho ee abaara 7 fiidnimo ee waqtiga magaalada Muqdisho ayaa maleeshiyad loo maleynayay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab waxa weerar ay ku qaadeen hoteelka weyn ee caanka ee SYL oo aan ka fogeyn xarunta Villa Soomaaliya ee madaxtooyada magaalada Muqdisho imika khadka telefoonka waxa si toos ah ugu jira wariyahayaga Cabdilaahi Axmed Nuur Cabdilaahi weerarku wali ma socdaa أنا وما كنت أفكر شكتنا ورا كانوا بالله يفيد كي تضربي هذين نوعاوة ولي وحلا نقول يا حرنت وهذا الخيس وهلا نقول المقدسة رفعت تلتين وكذا عيسى إذا ما أمان كأي أنا كهولا كذي ورا كانوا صادر العين ما كان صور جود كبي حالة دعاء السلام ورا كان وهذا مدعين وكذا وأنا وردي أي الشباب مقالنا كذي يكون جرين قارهان كوي هتلاقي كقاري جرين ما كان ورا يعني كبينا شباب ورد على يسوع بوشي والآخر marka ay ku dhuftaan hotelka iyo albaabada laga galana kadib kooxaha weynaya gudaha u geli jiray laakiin taa ma dhicin waxa markuu la maqlay rasaas ay ridayaan kooxdaasi hubaysneed iyo bambooyinka gacanta laga tuuro oo hotelka lagu weeraray weerarkana waxa uu ka yimid sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah dhinaca wadada laamiga ah ee hormarta madaxtooyada Villa Soomaaliya qof kamid ah dadkii ka badbaaday weerarkan oo Allah ayaa ii sheegay in markuu uu maqlay rasaas isaga iyo dad kale oo tadbiirada hotelkana ay kala ordeen oo ay ka boodeen dadka intooda badan darbiga hotelka ee jira dhinaca beerta nabadda qof yaqaana magaalada Muqdisho ee degmada Xamar Gajab marka hadda rasaasti weli waa la maqlayaa aslan lamana oga xaaladda rasmiga ah ee gudaha hotelka jira Cabdilaahi inkastoo sidaad sheegtay weli rasaasta la maqlayo loona malaynayo in weerarku weli socdo إنما wax warari ma jiraan oo ku saabsan khasaaraha ilaa imika dhacay asalaano dadka qaar ayaa ehelada la soo xiriiraya oo gudaha hotelka soo hadlaya qof kastaana uu qalqalsan yahay oo ma sheegi karo xaaladda rasmiga ah ee meesha ka jirta laakiin hotelka xilliga weerarku dhacay dad badan ayaa ku sugnaa gudihiisa khasaare ayaa jira kala duwan maadaama kooxdu ay gudaha u gashay laakiin weli lama hayo tirada rasmiga ah marka uu weerarku si rasmi u soo afgarmo ayaa la waan karaa khasaaraha inta uu leeyahay haddii su'aal kale ku weydiiyay Cabdilaahi hotelkani wuxuu ku yaalaa meelaan ka dheerayn madaxtooyada Villa Soomaaliya magaalada Muqdisho waa aagga amaankiisa aad iyo aad ka loo ilaaliyo marka weeraradu ma joogtay ka yihiin hotelka iyo meelaha u dhow miyay inta badan ka dhacaan horta aslan hotelkan tiro laba jeer ayaa weerar lagu qaaday meelaha weerarada ugu badan ka dhaceen ayuu ku jiraa magaalada markii bilii u dambeeyay aad fiiriso waxaad moodaa in weeraradu ay yaraadeen goobtan weerar ka dhacana waa meel aan gaadiidka dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay mararka qaar aanay suuragal ahayn haddaanu qofku wadanin ID kaar dawladeed ama qof dawladda ka tirsan uusan ahayn marka filashada iyo amniga xoogga ay saareen dawladdu waxay ahayd inay ilaaliyaan baabuurka waxaa qarxatida laakiin waxaad moodaa shabaabku laftirkooda inay bedelayaan qidadoodii hore oo qaawa weerarkan waa mid ka duwan kii ay qaadi jireen maadaama aanay adeegsan gaadiidka qarxada laga soo buuxiyey oo ay bambooyinka gacanta iyo kooxdaysan weerarkan ay fuliyeen aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga Cabdilaahi Axmed Nuur oo inoo soo gudbinayay wararkii ugu dambeeyay ee weerarka weli ka socda hotelka loo yaqaan SYL ee ku yaala meel u dhow xarunta Villa Soomaaliya ee madaxtooyada ee magaalada Muqdisho